calaykum nabaded ilahaantiinba daawade halkaad naga daawanaysid waa kanaalkayaga sahanka xogaa cusub. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad kanaalkaygan soo booqatid fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaadhaan muuqaaladii ugu dambeeyaan barteedana soo dhigno. mahadsanid. 51 sano kadib geeridiisii dhaxalka iyo raadka uu ka tegay madaxweynihii hore Masar Jamaal Abdel Nasser ayaa weli ah mid ay dood kulul ka taagan tahay, gaar ahaan markasta oo ay ka soo ifbaxaan arrimo gaar ah sida caadifada Israa'iil. waxaa jira kuwa u arkay inuu yahay astaanta sharafta, midnimada Carabta iyo gumaysidiidka. waxaa dhanka kale jira dad ku eedeeya dulmi iyo ku xadgudub ka soo horjeeda uuna mas'uul ka yahay guuldarrada culus. sadarada soo socda waxaan ku gorfayn doonaa saldhigyada ugu caansan nolosha Jamaal Abdel Nasser oo weli ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan siyaasadda taariikhda casriga ah ee Bariga Dhexe. sanooyinkii ugu horreeyay noloshiisa, Jamaal Abdel Nasser wuxuu ku dhashay Alexandria sanadkii 1918, wuxuuna ka dhashay qoys fudud oo asalkiisu ka soo jeeda Masar sare. aabihiis wuxuu ahaa shaqaale ka tirsan maamulka boostada. qoyska Jamaal ayaa u wareegay dhowr gobol oo Masar ka tirsan shaqada aabihii qabto darteed. wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed isagoo aad u daayar, isagoo ka qayb galay banaanbaxyo ardaydu kaga soo horjeedaan gumaystiga Ingiriiska. dhaqdhaqaaqiisa ardaynimo ayaa ka hor istaagay inuu ku biiro kulliyadda militariga, sidaas darteed wuxuu wax ku bartay kulliyadda sharciga. dhowr bilood kadib mar kale uu isku dayay inuu waxaana laga aqbalay kulliyadda ciidanka, wuxuuna ka qalin jabiyay sanadii 1938. isla markii uu qalin jabiyay, Jamaal Abdel Nasser wuxuu ku biiray ciidanka lugta, wuxuuna ka shaqeeyay meelo kala duwan sida gudaha Masar, Yemen iyo Suudaan. muddadan wuxuu la kulmay saaxiibadiis uu la aasaasay ururka saraakiisha xorta ah, waxaana loo magacaabay macalinka kulliyadda ciidanka. Abdel Nasser wuxuu ka qayb galay dagaalkii Falastiin ee 1948. markii hore wuxuu ahaa mutadawacnimo, kadib wuxuu ka mid noqday ciidanka Masar markii wadamada Carabtu qaadeen weerarka militari si ay uga saaraan maleeshiyada Yuhuudda halkaasi. xilligaasi waxaa sidoo kale soo baxay qaraarkii qaramada midoobay ee uu kala qaybinayay Falastiin laba dowladood oo kala ah Yuhuud iyo Carab. buugga falsafada gacaanka oo la daabacay sanadii 1954, Abdel Nasser wuxuu ka hadlay tabarucaadiisa ka hor intii Masar aysan gelin dagaalkii 1948. markii uu bilaabay, waxaanu ku qanacsanaa in dagaalka Falastiin uusan ahayn dagaal ka socda dhul shisheeye oo uu yahay dareen iyo waajib isdifaaceed. waxaa la rumaysan yahay in dagaalkaas uu ku dhammaaday ciidanka Israa'iil oo qabsaday meelo badan. arrintan ayaa sabab u noqotay gacaankii ururka saraakiisha xorta ah ee bishii Julaay 1952, kaas oo soo afjaray xukunkii qoyskii Maxamed Cali ee Masar. dhammaadkii xukunkii qoyskii Maxamed Cali sanadii 1949 waxaa la dhisay guddi fulineed oo ka tirsan saraakiisha xorta ah oo uu hogaaminayay Jamaal Abdel Nasser. 23 Luulyo 1952, cutubyo ciidan oo daacad u ahaa ururka ayaa boqor Faaruq ku qasbay inuu xukunka ka dego oo uu dalka ka baxo. sanadkii 1953 waxaa soo baxay go'aankii golaha taliska gacaanka oo ahaa in la baabi'iyo boqortooyada oo laga dhawaaqo jamhuuriyadda, islamarkaana loo dhiibo madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamuud Nagiib. sanadkii 1953, Abdel Nasser oo horkacaya wafdigii Masar ayaa wadaxaajood ka galay ka bixitaanka ugu dambeeyay ee ciidamada Ingiriiska ee Masar. sanad kadib waxaa heshiis dhex maray Jamaal Abdel Nasser isagoo ah ra'iisul wasaaraha Masar iyo Anthony Newton oo ahaa wasiiru dowlaha Ingiriiska arrimaha dibadda. heshiiskan wuxuu dhigay in Ingiriisku ka guuro Masar muddo 20 bilood gudahood ah, iyo dhammaadka heshiis isbahaysi oo lagu saxiixay London sanadkii 1936. kadib aftidii bishii Juun 1956, Nasser wuxuu la wareegay jagada madaxweynenimo kadib markii uu Maxamuud Nagiib la dhigay xabsi guri.
markii uu sii kordhay khilaafka u dhexeeya isaga iyo golaha taliska kacaanka. Taageerayaasha Naasir waxay rumaysan yihiin inuu la saftay masaakiin iyo siyaasaddiisa hanti wadaagga, halka kuwa dhaleeceeya ay ku eedeeyaan inuu bilaabay olole caburin oo ka dhan ah dadka ka soo horjeeda, waxayna ku eedeeyeen inuu mas'uul ka yahay burburinta nolosha siyaasadda iyo xisbiyada Masar muddo 10 sano ah, isagoo kala diray xisbiyada oo qaatay siyaasadda in hal xisbi dalka ka jiro. Qaramaynta kanaalka ayaa daahfuray weji cusub. Qaramaynta kanaalka Suez ee Ingiriiska, Faransiiska iyo Israa'iil oo awood militari u adeegsaday Masar, taasi oo loo yaqaan gardarrada saddex geesoodka ah, ayaa daahfuray wejiga cusub ee xukunka Cabdinaasir. Gardarrada saddex geesoodka ah iyo cadaadiska caalamiga ah ayaa horseeday in la xoojiyo muuqaalkiisa oo loo arko inuu yahay hogaamiye xoreyn gobolka iyo inuu yahay nin u dhaqaaqa madaxbannaanida dadyowga. Naasir wuxuu kaalin muhiim ah ka qaatay aasaaska dhaqdhaqaaqii dalalka dhexdhexaadka ahaa oo la aasaasay shirkii ugu horreeyay lagu qabtay Belgrade ee sanadii 1961. Yoolka ugu weynaa wuxuu ahaa in laga fogaado siyaasadda dagaalkii qaboobaa iyo kala qaybsanaantii jirtay waqtigaas u dhexeeyay galbeedka iyo bariga. Naasir waxaa loo arkaa mid ka mid ah aasaasayaashii hore ee dhaqdhaqaaqa, isaga oo ay ku weheliyaan ra'iisul wasaarihii Hindiya Nehru, madaxweynihii Yugoslaviya Tito iyo madaxweynihii Indonesia Sukarno. Naasir wuxuu taageerayay dhaqdhaqaaqyadii xoreynta qaaradda Afrika, isagoo ku saleynayay rumaysnaanta in Afrika ay tahay goob muhiim u ah Masar. Waxa kale oo uu gacan ka geystay dadaaladii xilligaas lagu sameynayay Ururka Midnimada Afrika oo xaruntiisu ahayd Addis Ababa. Waddaniyada Carabta, Jamaal ayaa had iyo jeer loo arkaa inuu ka mid ahaa dadka u ololeeya fikirka waddanimada Carabta, isagoo ku salaysnaa rumaysnaantiisa ah in midnimada Carabtu tahay mid muhiim ah. Waxyaabaha uu ku guuleystay waxaa ka mid ahaa mideynta Masar iyo Suuriya sanadii 1958 uuna bixiyay Jamhuuriyadda Carabta midaysan. Inkastoo ay si dhaqso ah u burburtay, Cabdinaasir wuxuu kaloo taageeray kacaankii hogaamiyayaasha ciidamada Ciraaq ee ka dhanka ahaa boqortooyada 1958, wuxuuna kaalin muuqata ku lahaa taageerada kacaanka Algeria iyo sidoo kale kacaanka Yemen sanadii 1962. Go'aanka ahaa in ciidamada loo diro Yemen ayaa weli ah mowduuc dhaleecaynta kulul ilaa uu kala kulmay ilaa iyo hadda, iyadoo dad badani u arkaan inay tahay mid hanti badan lagu lumiyay iyo jabkii dagaalkaasi ka soo gaaray ciidamada ka dagaalamay buuraleyda Yemen. Arrintaas ayaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah sababihii keenay guuldaradii ciidankii Masar dagaalkii ay la galeen Israa'iil bishii Juun 1967. Shirweynihii ugu horreeyay ee Carabta ee 1964 oo uu ku baaqay Jamaal Abdinaasir ayaa lagu aasaasay Ururka Xoreynta Falastiin oo loo arkay inuu yahay hogaamiye abaabulaya xoogagga dadka Falastiin ee Carabta si ay ula dagaalamaan Israa'iil loona xoreeyo Falastiin. Dagaalkii Juun sanadii 1967 ayaa noqday mid ku keena dib u dhacii ugu weynaa ee safarkii Naasir iyo mashruuciisa waddaniyadda Carabta, iyadoo ciidamada Israa'iil ay ku guuleysteen inay la wareegaan kacaankii Sinai, Mareykanka iyo Gaza, daanta galbeed iyo buuraleyda Golan ee Suuriya. Cabdinaasir ma lahayn waddo kale oo u furan oo aan ka ahayn inuu ku dhawaaqo casilid oo uu qaado mas'uuliyadda guuldarro, laakiin wuxuu ka noqday maalintii xigtay kadib markii banaanbaxay diideen inuu xilka ka dego. Jamaal Cabdinaasir ayaa dhintay kadib markii uu wadnuhu istaagay 28 Sebtembar 1970. Intaa waxaa noogu eegay muuqaalkii aan ku gorfeynaynay madaxweynihii Masar ee Jamaal Cabdinaasir. Haddii su'aal aan kaaga tagay, Jamaal Cabdinaasir wuxuu ahaa halyey Carbeed mise nin guuldarro soo hooyay? Haddii ay tahay markii ugu horreysay ee kanaalka eegan timaadid,
fadlan subscribe noo saar gambalaalkana furo si ay kuu soo gaadho muuqaaladii ugu dambeeyay barteena soo dhigno ilaa 5 qof oo kalena sii gaarsii mahadsanidin inta muuqaalka xiga aan iskugu iman doono sidaas fi amaanillah.